Ma ogtahay in qaar ka mid ah dalalkii ugu awoodda badnaa dunida uguna saamaynta badnaa ay ka dabar go'een khariirada adduunka? Waddanka koowaad ee burburay waa Yugoslavia. Midowgan waxaa la aasaasay sanadkii 1918 waxaana burburay 1992 kadib dagaalo dhiig badani ku daatay kala daadsanaantiisuna waxay dhalisay 7 dal oo cusub kuwaas oo ay ka mid yihiin Slovenia, Croatia, Bosnia iyo waqooyiga Macedonia, Montenegro, Serbia iyo Kosovo. Waddanka labaad ee khariirada ka baaba'ay waa Czechoslovakia, laakiin kala tag kasta ma aha mid burbur iyo dagaal wata. sanadkii 1993 dalkani si nabad ah ayaa ugu kala qaybsamay 2 dal, Czech Republic iyo Slovakia. Taariikhdu waxay arrintan u taqaanaa furiinkii Velvet. Waddanka saddexaad waa Austria-Hungary. Ka hor dagaalkii koowaad ee adduunka waxa uu ahaa mid ka mid ah boqortooyooyinkii ugu waaweynaa Yurub. Markii uu dagaalka ku guuldaraystay 1918 gabi ahaanba waa uu burburay, waxaana dhulkiisa ka curtay dalal cusub oo badan. Waddanka afraad ee khariirada ka baaba'ay waa Prussia. waxay mar ahayd dawlad ciidan ahaan aad u xooggan oo Yurub ka tirsan, waxayna door weyn ka qaadatay mideyntii Jarmalka. laakiin kadib dagaalkii labaad ee adduunka si rasmi ah ayaa loo kala diray, dhulkeediina waa la kala qaybsaday. waddanka shanaad ee khariirada ka baaba'ay waa Tibet. halkani waxay ahayd gobol qadiimi ah oo Buddhismku ku xooggan yihiin, kaasoo hoos yimid gacanta Shiinaha sanadkii 1950. xataa maanta waa gobol siyaasadiisa iyo taariikhdiisu ay aad muhiim u tahay, balse ka tirsan Shiinaha. ma rabtaa inaad baratid xirfadaha online-ka lagaga shaqaysto income iyo dhaqaalena aad ka samaysid online-ka? haddii aad u baahan tahay inaad barato xirfadaha AI-da, freelancing-ka, affiliate marketing-ka, cryptocurrency iyo digital products-ka sida loo sameeyo online-kana loogu iibiyo, iyo xirfadda e-commerce-ga, waxaan ku haynaa e-books si tafatiran kugu sharxaya kuna baraya kuna siinaya siraha xirfadahaas online-ka loogaga shaqaysto. kaliya WhatsApp-ka iga soo weydii buugaagtaas, halkaas ayaana kugu soo diri doonaa. igala soo hadal nambarka WhatsApp-ka aan dhigi doono commentiga.